ninka halkan aad ka aragtaan sawirkiisa waa Mikhail Kalashnikov. ninkani waa maskaxdii ka dambeysay aalad ka mid ah aaladaha waxgumaada. waa aalad aynu haddaynu Soomaalinahay aad uga dharagsannahay dhawaqeeda, araggeeda iyo weliba xanuunkeeda. ninkani waa ninka soo saaray qoriga loo yaqaano AK-47. haddaba waa kuma Mr. Mikhail Kalashnikov? bal aynu yaro jaleecno taariikhdiisa. Mikhail Kalashnikov waxa uu ku dhashay gobolka Kuriya ee ku yaala koonfurta dalka Ruushka sanadku markuu ahaa 1919. yaraantiisii waxa uu aad u jeclaa waxyaalaha mekaaniga ah sida mashiinada. waxa uuna ku taami jiray in uu noqdo cabqari wax alifa kuna yeesha magac bulshada dhexdeeda. haddaba sanadku markuu ahaa 1938 waxa uu ku biiray ciidanka Soofiyeedka ee loo yaqiinay Red Army ama ciidankii casaa. waxa uuna commander ka noqday qaybta taangiyada, halkaasoo uu kaga qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka kaasoo uu ku dhaawacmay sanadku markuu ahaa 1941. haddaba Mr. Kalashnikov intii uu ku jiray isbitaalka ee lagu dabiibayay ayaa waxa u suura gashay in uu alifo qorigaasoo ay fududahay isticmaalkiisa una adkaysan kara cimilooyinka kala duwan sida boorka, kulaylka, qabowga, barafka iyo roobka intaba. sanadku markuu ahaa 1947 ayuu wuxuu ku guulaystay ninkani inuu ku qanciyo ciidamadii Soofiyeedka, weliba qaybtii hal abuurka qalabka ciidan, in ay qaataan naqshadiisa lana soo saaro qorigan, taasoo ay ka yeeleen. haddaba dabayaaqadii isla sanadkaas ayaa waxaa la soo saaray qoriga magaciisa loo bixiyey AK-47, taasoo u taagan Automat Kalashnikov 1947. qorigan oo asagu noqday qoriga ay ugu jecel yihiin ciidamada dowladaha dunida iyo dagaalyahanada fallaagooyinka ah ee ka dagaalama dacallada dunida, ayaa daraasad la sameeyey 2004 oo hadda laga jooga muddo 15 sano ah in nus bilyuun ama 500 oo milyan oo qori oo AK-47 ah ay dhex cegaagayaan dunida, ayna dilaan sanad walba dad lagu qiyaasay ilaa 500,000 ama 250,000 oo qof. haddaba mar la weydiiyey Mr. Kalashnikov in uu ka qoomameynayo in uu soo saaray aalad wax halaagta, ayuu wuxuu ku jawaabay in mararka qaarkood uu isweydiiyo xanuunka iyo dhibta uu soo kordhiyey qorigaas, isagoo intuusan dhiman wax yar ka hor warqad u diray baadariga kaniisadda Orthodox-ka ee dalka Ruushka, uuna ku weydiinayo in uu dambaabay iyo in kale, maadaama uu soo saaray qori wax halaaga oo dad badan baabi'iyey. haddaba kaniisaddii ayaa ugu jawaabtay Mr. Kalashnikov in uusan dambaabin, maadaama xilligii uu soo saaray qoriga ay ahayd xilli lagu difaacayay dalka Ruushka iyo Soofiyeedkaba. ninkan oo asagu aan xoolo badan ka helin alifaadda qorigiisa ayaa waxa uu ka helay bilado badan madaxdii isaga kala dambeysay dowladihii Soofiyeedka. kadib markii uu burburay Soofiyeedkana madaxdii soo qabatay dalka Ruushka ayaa waxa ay siiyeen bilad sharafyo aad u tiro badan. haddaba ninkan oo ah ninka alifay fikradan ba'a iyo hooga u keentay ummado tiro badan, galaafatayna naf aad u tiro badan, ayaa sanadku markuu ahaa 2013 isagoo 94 jir ah waxa uu ku geeriyooday dalka Ruushka.